الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هدير waxaan markaa dhigtiina ku riday Soomaalida culaadeeda iyo waxay ka kacdo burka cawsa iyo barkada kamana gowdo maxaa la yiri markaa mahmaahdu marba jirta rag looguma mahmaahe muxuu yiri calooshi la cayaar iyo ciilka ma kora u daran dumarkana irkeed bogatay iyo casar seexata u daran mid waliba baylahdiisi buu lumiye macnaha weey burca cawsa iyo barkadina isku dillo caadayno ahaan jirtay xun laakiin caadayno ma ahaan jirin iyadoo abaar qamaaciiri oo gaarma reebeyna haysato oo la baqteeyo oo meel walba cadowgina inaga haysto in la istiro taas aan ugu cusub waxaan u dirayaa fariinta saaxmaygaag salaax iyo wanaaga keena baan leenahay guurtida joogtana waxaan leenahay ilaahay garabkiina ayuu jiraa waxa kale oo garabkiina jira ducadayda colaada 20ka qoracde lagu dilaysaan maqlayno jaraa'idka ku qoran 20 sanana soo socotay xal looma waayine maxay tiri islaantii jirtay ninkaasi bay tiri inanteeda kamu dhali waayna waa garanaya xoog weyn xal looma waayine meesha ma hagrasha jirta kuwii meelahan oo kale idinka sokaysa ahaan jiro kale ay noqonine baashay naga soo afmeera maanta meel bay maraysaa waxaan idin sheegayaa raggii gabayaasha ahaa timacada kamid ah waxa markaasi uu yiri wixii hore u daashaday degashanaysa bal inay dafoofto aqliga dooni laga saaray wixii hore u daashaday bay degashanaysa siyaasiga maanta Soomaali ku loolamayna waxaan leeyahay colaadu isaga salka ku leedahay maswaabaydi lama dhunyadiyo midho dhunkaaleed manfacaan la cunin baa jiro mawdka ku sida labaduba waa kay baxshaan Mareykan iyo madaxda naatood waxa isku haysataan suntii Mareykanku idin siiyay ana cabaya labadiina mar ku dhimanaysan faraha ka qaada labadaba waxaan xasuusinayaa fariinta labaadan dirayay tahay warka naxdinta laan ka helay jaraa'idka ka soo baxay Mareykanka jaraa'idkuuna qoray waa hubaal warbaahinta ay ku jirtaa kiraatanaysa Ethiopia intaan nabarkii Tigray ku dhicin waxay diyaar u ahayd wadda Soomaaliya inay qabsato waliba goboladan waqooyi sayrac baa lagu hadalaya ama madaxda Soomaaliland waa laga hadlay way ku gacan saydeen laakiin inoomay sheegin waa haday jirtay sugnaato ama ha jirta ama ayaanay jirin ninbaa wuxuu yiri intaan Ilaahay ka garto samada waan ka hoos joogay Ethiopia inay dhulkaygii dhacday iguna socoto waligay waan ogaa intaan leegaanay laakiin se dhulka gobol iyo haaf bay u goosanaysaa jumla waahida inay qaadato la isku ogeyn qawaaniinta caalamkana kuma jirin markaliya Soomaaliya markay badda qaadato bari miyo ku jooga dabada markay ka marto badday maraakiibta waxa la yaabo dawladaha waaweyn ee kamid ah Faransiisku maxaa uu 30 kun oo ciidamo badeed ugu diyaarinaya dal aan badba lahayn Soomaaliya inaad u soo tababartay badda Soomaaliya dhalinyaray madaxda marka hormuudka iyo maanta hal doorkeedin hor fadhiya dalka ma ilaalinayaan dantu idin haysata wallahi dhalinyarada wallahi haysata iyo kuwa jiilka soo socday mustaqbalka looga tagayo dalka iyo diintaba badani maalin kamid ah xabashi isku qabsanaysaan shaki ma idinka haya maya laakiin masiika baa ilatay saado marka carabta cagaaga ayaa ku dili doona waxaan malina cagaagu ku dili doona adiga markaas weeyaa وبالله تعالى التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك